Waxaan rabaa inaad hal daqiiqo ila joogto. Ka fikir noloshaada maanta. Ma waxaad tahay qof ku qanacsan halka uu joogo, mise waxaad leedahay riyooyin waaweyn maalin kasta? Waxaad dib ugu dhacaysaa isla caadooyinkii shalay dib kuu dhigayay. Waxaa laga yaabaa inaad leedahay yoolal waaweyn. Waxaad rabtaa iimaan xooggan. Waxaad rabtaa jir caafimaad qab. Waxaad rabtaa dhaqaale wanaagsan. Waxaad rabtaa inaad qoyskaaga wax u qabato. Laakiin habeen kasta marka aad seexanayso, waxaad naftaada ku leedahay berri ayaan bilaabayaa. Laakiin berri weligeed ma timaado. Waxaan rabaa inaan kuu sheego wax laga yaabo inuusan qofku kuu sheegin. Noloshaada ma bedeli doonto hal maalin oo mucjiso ah. Waxay ku bedeli doontaa go'aanka aad maanta qaadato. Waxaa jirta Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay, Ilaahay ma bedelo xaaladda qoom ilaa ay iyagu bedelaan waxa naftooda ku jira. Ka fikir aayadan. Kuma oran dadka cabasho badan. Waxay leedahay isbedelku wuxuu ka bilaabmaa gudahaaga. Laakiin maxaa dadka badankood u guuldareystaan? Aan kuu sheego sheeko. Waxaa jiray laba nin. Labadooduba waxay lahaayeen hal riyo, inay noloshooda bedelaan. Ninkii koowaad wuxuu maalin kasta daawan jiray muuqaalo dhiirigelin ah. Wuxuu qori jiray hadafyo. Wuxuu oran jiray, maalin ayaan taajir noqon doonaa, maalin ayaan qur-aanka dhammayn doonaa, maalin ayaan jir fiican samaysan doonaa. Laakiin ficil ma jirin. Ninkii labaadna ma uusan hadlin wax badan. Maalintii koowaad wuxuu akhriyay qur-aanka. Wuxuu sameeyey jimicsi. Wuxuu bartay hal xirfad halkii saacadood maalin walba. Wuxuu seexday isagoo leh, waxyar ayaan maanta ka fiicnaaday shalay. 6 bilood kadib, ninkii koowaad weli wuxuu sugayaa maalinta uu bilaabayo. Ninkii labaadna dadku waxay leeyihiin, maxaa kugu dhacay? Aad baad isku beddeshay. Farqiga u dhexeeya labadooda ma ahayn caqli, mana ahayn nasiib. Farqigu wuxuu ahaa ficil yar laakiin joogto ah. Hadda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal. Adigu kee ayaad tahay? Ma qofka sugaya maalin kale, mise qofka maanta bilaabaya? Waxaan ogaaday wax dad badan aysan fahmin. Dadku waxay jecel yihiin inay beddelaan natiijada, laakiin ma rabaan inay beddelaan caadooyinka keena natiijadaas. Waxay rabaan inay jir caafimaad leh samaystaan, laakiin jimicsi ma sameeyaan. Waxay rabaan iimaan xooggan, laakiin qur-aanka ma akhriyaan. Waxay rabaan dhaqaale, laakiin xirfad lacag soo gelinaysa ma bartaan. Waxay rabaan guul, laakiin waqtigooda waxay ku lumiyaan wax aan faa'iido lahayn. Runta adag waa tan. Nolosha aad maanta ku nooshahay waxay inta badan ka dhalatay caadooyinka aad shalay lahayd. Haddii aadan beddelin caadooyinkaaga, ha filan noloshaadu inay isbeddesho. Haddaba sidee loo bilaabaa? Waxaan kula wadaagayaa 4 talaabo oo aad u muhiim. Talaabada koowaad, la heshii naftaada. Jooji marmarsiyada. Ha oran waqti ma hayo, qalab ma hayo, lacag ma haysto. Wax kasta oo aad maanta haysato ku bilow. Talaabada labaad, dhis xiriirkaaga adiga iyo Allah subxaanahu watacaala inaad xoojisid. Haddii qalbigaagu xoog yeesho, maskaxdaaduna way xoogaysanaysaa. Salaada ku ilaali waqtigeeda. Qur-aanka maalin kasta akhri. Ducada, istighfaarta waxay noqonayaan saldhigga isbeddelkaaga. Talaabada saddexaad, naftaada ku tababar disbilinka. Ha sugin dhiirigelin. Dhiirigelintu waa dareen yimaada oo taga, laakiin disbilinku waa balan aad naftaada la gasho. Xitaa maalinta aadan rabin waad qabanaysaa. Taas ayaa dadka guulaysta sameeyaan. Talaabada afraad, baro xirfado lacag ku dhalin kara. Xirfado adag oo mustaqbalka lacag kuu samayn kara. Dunida maanta qofka qiimaha leh waa qofka wax xalin kara. Baro xirfadaha editinka, baro naqshadeynta, baro suuqgeynta, baro ganacsiga. Maalin kasta 1 saac oo kaliya. 1 sano kadib waxaad la yaabi doontaa meesha aad gaar. Laakiin waxaa jira cadow kale, waa codka madaxaaga ku jira. Codka ku leh, ma awoodid, waad daahday, dadka kale ayaa kaa fiican. Ha rumaysan codkaas. Qof kasta oo maanta guulaystay maalin ayuu eber ahaa. Farqiga keliya wuxuu ahaa, ma uusan joojin dadaalkiisa. Waxaan rabnaa inaad qiyaasto naftaada 1 sano kadib. Waxaad tukatay salaada waqtigeeda. Qur-aanka ayaad la saaxiibtay. Waxaad leedahay jir caafimaad qaba. Waxaad leedahay xirfad. Waxaad leedahay dakhli kusoo gala. Qoyskaagana waxaad u noqotay qof ay ku faanaan. Su'aashu ma aha, ma gaari kartaa? Su'aashu waa, diyaar ma u tahay inaad bixiso qiimaha lagu gaaray? Dhammaadka muuqaalkan, waxaan rabaa inaad hal balan naftaada la gasho. Ha ballanqaadin inaad hal maalin ku beddesho noloshaada. Keliya ballanqaad maanta tilaabada aad qaadi doonto. Inaad qur-aanka akhrin doonto 1 saac oo waqtigaaga ka mid ah, inaad xirfad baran doonto 20 daqiiqo, inaad jimicsi samayn doontid. Hal caado oo xun oo aad maanta joojinayso. Xasuusnow, maalin kasta oo aad dib u dhigto isbeddelka, waxaad dib u dhigaysaa noloshii aad ku hami jirtay. Laakiin haddii aad maanta bilowdo, sanad kadib waxaad noqon doontaa qof aadan maanta xitaa aadan qiyaasi karin. Marka go'aankaaga adigaa iskale. Miyaad sii ahaanaysaa qofka sugaya beri, mise maanta ayaad noqonaysaa qofka beddelaya noloshiisa? Beddelkaaga wuxuu ka bilaabmaa maanta. Hal talaabo aad qaad, hal maalin, hal caado. Ilaahay idinkiisana nolol cusub ayaad gaaraysaa. Muuqaalka like saar. Wassalaamu calaykum.